dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dembi tahay faafinta wararka kooxda Al-Shabaab sida hanjabaadaha muuqaalada khatarta ah iyo faafinta afkaartooda. Wasiirka Hoggaanka Wasaaradda Warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaale ayaa maanta saxaafadda u sheegay inay xireen 40 goobood oo baraha bulshada ay ku lahaayeen shakhsiyaad fariimaha xagjirka faafiya. wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa dagaal xooggan kula jirta Al-Shabaab waxayna dowladdu hadda ay qaadaysaa tillaabooyin kale oo ku wajahan kooxda. Ku-xigeenka wasiirka warfaafinta ahna wasiirka hoggaanka Cabdiraxmaan Al-Cadaale ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya dib u aqoonsan doonto faafinta wararka Al-Shabaab ee la xiriira cabsigelinta muuqaalada khatarta iyo faafinta afkaartooda. Jaraa'idda maanta waxa uu ku saabsan yahay qaybta saddexaad ee ku saabsan joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ama cabsigelinta in la faafiyo. sidaas daraaddeed dowladda Soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda, sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nooc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nooc kasta ay yihiin. go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horay dawladdu u gaartay qaybo kamid oo ay fuleen qaybana ay dhimanaayeen. sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arrintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldambiyeed nooc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo. wasiir Cadaale ayaa sheegay in tillaabo ay ka qaadeen ku dhawaad 40 fadhiyo baraha bulshada ah oo Al-Shabaab ay isticmaali jireen. haddaba dawladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dawladeed ay gaartay waxa ay maalmihii la soo dhaafo bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada. ilaa hadda 48 saac la soo dhaafay waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo kuwa Twitter ah. waxaa kaloo socda oo meel wanaagsan maraya in la xiro oo hawada laga saaro qaar kamida applicationada ay argagixisadu isticmaalaan iyo sidoo kaleeto baraha kale ee bulshada ay isticmaalaan oo ay ku jiraan website-yada iyo kuwa kaleeto oo iyagana aan rajaynayno insha Allah ta'ala in la dhameystiro. marka taasi waa tilaabada ilaa hadda fushay. waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed oo aan ku wargelino dad badan ayaa iyaga oo aan ogeyn oo laga yaabo inaanay ku baraarugsanayn waxa dhexmara faafinta fariimaha argagixisada oo isugu jira marin habaabinta iyo cabsigelinta. sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan ogeysiino dadkeena sharafta badan nooc kasta oo ay yihiin in qof kasta ama goob kasta oo lagu faafiyo fikirkaas ay dowladda Soomaaliya u tahay bartilmaameed iyo goob dambi oo loola dhaqmi doono loona cuska doono. wasiirka hoggaanka wasaaradda warfaafinta ahna ku-xigeenka wasiirka ayaa sheegay in qaraarkan uusan ka dhigneen aburinta khulutul qowlka isla markaana dowladda Soomaaliya dhowrayso qodobka dastuuriga 18aad. waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo oo dadka Soomaaliyeed u sheego dowladda Soomaaliya sida uu dastuurkeedu jideeyay waxa ka go'an ilaalinta mabaadi'da xorriyatul qowlka. waxaan rabnaa inaan cadeyno arrintaani lama xiriirto xorriyatul qowlka. waa naga go'an tahay sida ku cad qodobka 18aad iyo sharciga saxaafadda labadaba in aan si dhammaystiran ugu hogaansano oo dowlad ahaan aan u ilaalino wax kasta iyo wixii la xiriira xorriyadda bini'aadamka. in ay dadku aragtidooda siyaasiga ah iyo aragtidooda dhaliisha ah iyo tooda toosinta ah si madax bannaan u cabiraan. laakiin taas laguma soo dhex qari karo mana ogolaanayno in la soo dhex marsiiyo fikirada argagixisada iyo maaragtay nimanka khawaarijta ah ee bini'aadamka oo dhan dilaaga u ah. Al-Shabaab iyo khawaarijtu ma aha xisbi siyaasadeed, ma aha aragti siyaasadeed, ma aha dad ogol inay fikir iyo aragti ay leeyihiin oo lagala doodo. waa dad aragtidoodu ay ka bilaabato dil aragtidooduna ay ku dhammaato dil. sidaas daraaddeed waxba kama duwana cudurrada dilaaga ah ee dunida soo mara oo coronavirus ugu dambeeyo. wasiir Cabdiraxmaan Al-Cadaale ayaa weydiiyay siday dowladdu u rabto in ula macaamisho saxaafadda markay timaado sheegidda wararka la xiriira Al-Shabaab ee ku qotoma dagaalada. waxaan kala jeednaa Cabdiqaadir saxafiyiin baan nahay adduunyada argagixisada Soomaaliya kaliya kama jirto meelo badan ee dunida ka jirta si loo tabiyo ayaa jira. waxaa jira wax qawaaniinta saxaafadda ee adduunyada ay ogoshahay oo la tabin karo iyo waxaan la tabin karin.
wixii qawaaniinta iyo shuruucda ay wariyaasha iyo saxafiyiinta u ogol yihiin waa ku dhiirigelinaynaa umana haysan waddanka dagaalaa ka socda in dagaal socdo oo dagaal la dhaceen waa wax caadiya waa war waa la sheegi karaa wax la isku khilaafsan yahay maaha laakiin al-shabaab dad ay googoynayaan oo ay madaxa ka goynayaan in la faafiyo taasoo inta badan ka dhicin warbaahinteena inta badan kama dhacda rasmiga ah waxaan u jeednaa fariinteena xooggeeda ay ku socotaa waxay tahay warbaahinta aan rasmiga ahayn ama baraha bulshada ayaan ka wadnaa sidaasoo kaleeto maalmihii lasoo dhaafa waad arkayseen dad bini aadama oo inta la dilay xitaa cawradoodii iyo madaxyadoodii oo go-aan ay soo saareen waxaan ka hadlaynaa waa waxaan sharciga adduunka meelay uga qoran tahay jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan sheegay in qof walba oo siiya taageero nooc walba ahaataba al-shabaab uu yahay cadow ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow beesada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadow waa meel dhaxo oo la istaagaahi maanta Soomaaliya kuma taalo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraya tahay dowladda Soomaaliya ayaa xilligan dagaal kula jirta al-shabaab waxaana dagaalku ka socdaa qaybo kamid ah gobolada kaasoo dowladdu garab ay keenayso dadka deegaanka waxaana dowladdu hadda ay sheegtay inay rabto inay kala dagaalanto al-shabaab jaha walba suuragal